dhaqdhaqaaqa dekeda berbera ayaa kor u kacay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay kadib markii ay dekeda isku soo gaadheen maraakiib iyo doonyo sida badeecado kala duwan oo isugu jira raashin bagaash gaadiid qalab dhisme iyo badeecado kale oo la mid ah shaqaalaha hawlwadeenada iyo muruqmaalka dekeda berbera ee geelaha loo yaqaano ayaa haatan ku mashquulsan howlaha dejinta iyo rarista badeecadaha dekeda ka soo degaya iyo kuwa ka dhoofaya sidoo kalena qaar ka mid ah gaadiidleyda wadda gaadiidka u kala goosho gobolada iyo degmooyinka dalkan jamhuuriyadda Somaliland oo haatan dekeda berbera rar ka qaadayay ayaa iyaguna ka warramay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo badeecadaha ay ka qaadayaan dekeda berbera gaadiidkaanu nahay waa raray alaabtii baanu raraynaa si fiican bay shaqada u socotaa si wanaagsan baanu diyaar ugu waxba iskuma dhibale waa nin waxaan leeyahay dadka waxay islaam ilaahay ka baqeen dekadii baanu joognaa gaadiidkuna si waxaan buu rarmayaa shaqaduna way fiican tahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaqdhaqaaqa dekeda berbera kor u kacay ayaa ku soo beegmay xilli dekeda berbera ay ka soo baxday xilligii arrafada oo xoolihii ugu badnaa ay ka dhoofeen dekeda berbera. dekeda berbera ayaa sida loo yahay waxay caan ku tahay dhoofka xoolaha nool kaasi oo magaceeduna uu ka kala dhacay daafaha dunida isla markaasina xoolaha ka yimaada sanadaha adduunka looga yaqaano berberi. cabdisalaam xariir TV-ga qaranka Somaliland dekeda berbera.